goorsan aan daawadayaal kusoo dhawaada Somaliland Digest iyo barnaamijka dhacdada dharaar bay idin la soo gudbiyaa wixii markaas socda. barnaamijkan waxa aynu kusoo qaadanaynaa ama kusoo marti qaadnay xogayaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee xisbiga mucaaradka ee wadani Xamse Khayre. Xamse ayaa qoraal uu qoray saaka subaxdii hore waxa si weyn baraha bulshada loogu falaqeeyay xogtii uu xambaarsanaa. dhacdadaas saacadihii uu ku jiray ayaa kaliftay barnaamijkan iyo kulankeenan. Xamse ku soo dhawow Somaliland Digest. aad iyo aad baa mahadsantihiin waana ku dhowahay Somaliland Digest. Xamse waxaad qortay qoraal ku saabsan doorasho ka dhacday gudaha Somaliland ama ka socotaba gudaha Somaliland balse xukuumadda Somaliland iyo musabixi aanay waxba ka ogeyn. maxaad dhacdada nooga sheegi kartaa? doorashadaasi waa doorasho Soomaaliya dalka Ingiriiska ah Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Puntland ayaa wuxuu doorasho iyo diiwaangelin codbixiyada ka wadaa iyo ololaheedii deegaano Somaliland oo gobolka Sanaag kamida gaar ahaan degmooyinka Xiingalool Baran Laasqoray inahaas iyo dabcan Buuhoodle Boocame iyo weynogna kuwa xaalado abniba dagaal baa ka jira laakiin halkan xataa deer mehdin madaxweynuhuna qodbadii maanta dhaweyd ka hadlayay iyo marnaba muddada imika 5 bilood ee uu ku celinayay Puntland baan soo weerartay markaliya ma soo hadal qaadin in Puntland ay si habsami ah oo qalindaar la'aan doorasho uga wado xuduudaha Somaliland gudaheeda dhul ka mid ah Somaliland oo gobolka Sanaag bari marka arrintaasi waa la saabsanay dhacdada inta leeg ka socota dhulka inta leeg xogaya Xamse xukuumadda ma ka aqoon darraba mise waa ka dayac? xukuumaddu aqoon darro kama aha waa ka fashil maadaama xuduudii dhulka Somaliland ee lagu wareejiyay markuu madaxweynahan imika waqtigiisu dhamaaday la doortay 2017 22 degmo doorasho ayaa lagu wareejiyay waxaa gacantiisa ka baxay 7 degmo doorasho in ka badan oo ay ka mid yihiin degmooyinka aan ku sheegayaa xukuumaddu markaa waxay ku dadaalaysaa inay indhaha shacabka reer Somaliland ka qariso inay arkaan ama maqlaan in dhul ama xuduud ka mid ah Somaliland Puntland ay si habsami ah uga wadato doorashooyin diiwaangelin codbixiye iyo olole oo haba yaraatee aanay jirin maamul Somaliland oo dhulka ka dhisan haba yaraatee aanu jirin madaxweynuhu qodbadiisu kuma soo hadal qaadin waxaad moodaa in ummadda looga dhigayo in xuduudii ay Somaliland ku wajahdo tahay maaha degmada shaxda leeyahay ee gobolka Sool ka tirsan weeye xuduudu oo ka shishaysa godqaboobe iyo tukaraq iyo gambadhaba intaaba xagga ka xigtay weeye marnaba goojacade maaha xuduudda Somaliland oo Laascaanood Sanaag barina lama hadal hayo dabcan doorashadu waxa kale ka dhacaysa Boocame iyo gobolka Togdheer oo Buuhoodle ku jirto marka kuwa dagaal baa ka socdo Laascaanood waad ogtahay madaxweynuhu 5 bilood imika wuxuu ku celinayay in ay Laascaanood soo weerareen Puntland wuxuu dadka uu ka qarinayo oo aanu sheegin in Laascaanood maaha ay Sanaag bari oo dhan Laasqoray Xiingalool Baran halkaana Puntland ay ku soo duushay oo ay codbixin iyo diiwaangelin iyo olole ka wado nasiib darro ma aqaan sababta warbaahinta Somaliland ay ummadda indhahooda uga jeedinayso xuduud ka mid ah waxaad moodaa in dhulka inta la gacantii xukuumadda ay ku wareejinay ay ka baxday mana rabto fashilkeeda inay ogaadaan dadku sida darteed baynu arrintan uga hadlaynaa Siciido. waayahay waqtigii 2017 ee la sharaxayay madaxweynaha hadda talada haya waxaa campaignkiisa ugu weynaa inuu yahay nin dalkan maaragtay gacan weyn ka geystay oo aan looga warwareynin sawirka waqtiga la iibinayay dabcan dadka campaignkiisa sitay ay ku hadaaqayeen iyo sawirka maanta ee musabixi labadaas sawir haddaad bal isku daydid inaad isbarbar dhigtid ama aad wax ka tiraadid waa baadsan tahay maanta xaqiiqada jirta runtii aad bay uga fog tahay waxa muuqata madaxweyne ama karti darraha ka ahaato
ama kasta ka ahaato dhulkii iyo xuduuddii somaliland ee loo dhiibay gacantiisa ay ka baxday oo imikaanay gacanta ku jirin mararka qaarkoodna shakibo kaa gelayo in uu daacad u yahay oo uu daacad ka yahay in somaliland xuduudaheeda ilaaliyo oo inuu qorshayaal kale soo qaatay aad moodo dhulka intaa leeg baa gacantiisa ka baxay markaa wixii shalay lalahaa waxaa ka asala waxa maanta xaqiiqada indhaha horteena taalla intaa haddaan taa kaga baxo waxaan jeclaa inaan ku darsado siciido taariikhyada 2017 halkaa madaxweynuhu waa tegey waa ka soo ololeystay waxa dhacday hadda dee markaa dhul isagoo musharaxa uu tegey bay ahayd maanta waxa dhacday iyadana inay waxa dhacday maanta in dhulkaasi aanu gacanteena ku jirin oo dowladda puntland ay ka wadato 2021 markii doorashadii golaha deegaanka iyo wakiilada ee isku sidkanayd ay somaliland ka dhacaysay madaxweynuhu waxbuu ka bedelay qaabkii wax looga dooran jiray doorashooyinka deegaanadaasi looga qaban jiray ee isxambaarka la odhan jiray ku saraysnaa duruufaha siyaasadeed ee deegaanka ka jira wax ka bedelkaa siyaasadeed oon la tashi cidna kala samayn aqoon ku dhisnayn fahan dheeraada iyo wacyiga dhabta ee dhulka ka jira dabadeed taas waxay keentay in dadka deegaankaas sanaag beri haba yaraatee aanay hal kursi ku yeelan golaha wakiilada somaliland ee maanta fadhiya golahaasoo ka foolxun dhammaan golayaashii ka horreeyey ee hore loo doortay maadaama deegaan ballaadhan inta leg taasi waxay sahashay markaa siyaasadda madaxweynuhu uu sameeyey in kuraas gobolka sool lahaa oo beelahaas ay lahaayeen ka baxaan gobolka sanaag bari siduu leeyahayna kuraastiisii gacanta ka baxdo isla markaa taasi ay u sahasho puntland inay si fudud u kasbato dadkii oo ay usoo dhex gasho maadaama aanay somaliland ka mid ahayn markay sidaa tahay yaa somaliland markaa baabi'inay macida qaybo dhan oo somaliland ka mida duudsiday xaqoodii matalaadeed ay ku lahayn golayaasha wakiilada markaa arrintaasi maanta xaqiiqadu waa sidaa waxaa dhacday iyadoo ay sidaa tahay beelaha warsangeli 2022 bishii 6 bay madaxweynaha ku casumeen magaalada ceerigaabo dowladda somaliland iyo beesha waxaa dhex maray heshiis waxaa hogaaminayay sultaan siciid heshiiskii dadkaasi tabashadii iyo waxyaabihii xaquuqihii kaga maqnaa somaliland bay soo bandhigeen waxaa kaloo somaliland ugu baaqeen ay ku casumeen inay maamulka somaliland soo fidiso oo ay soo gaadhsiiso deegaanadan madaxweynuhu maalintii uu ka soo noqday halkaa ayaa ugu wardambeysay waanu kaga baxay arrimahan oo dhan oo ay kale oo iyadana aan ka tegin aan xasuusanahay wixii aflagaadadii uga tagtay taliyaha ciidanka qaranka deegaankaas ee ku liiskaba taga awalba macnaha dhaqaalun baad meesha ku qabteen waxaasoo dhani waa waxa sahlaya in dadkaasi ay u nuglaadaan faragelinta wadamada jaarka ee soomaaliya ka mid tahay puntland anagu soomaaliya noo naqaanaa beryahan dambe waxaa soo baxday madaxweynuhu in puntland dadka uga dhigo kale isagoo markaa xasan sheekh ka dhigaya nimaan shaqo ku lahayn dhibaatooyinka ka jira deegaankan waxaanu aaminsannahay hubka iyo ciidanka ka dagaalamaya laasaanadu waa ciidankii soomaaliya hubka meesha kusoo qulqulaya waa hubkii soomaaliya puntlandna soomaaliya ka mid tahay wax kasta oo meesha ka dhacana dowladda soomaaliya mas-uuliyadda koowaad leh ma garatay markaa arrimuhu sidaasay walaalu yaaleen siyaasad xumada halkan ka dhacday iyo fashilka xuquuqda talada haysta iyo fogeynta ay kula kacday ayaa u sababay inay puntland doorashooyin iyo diiwaangelin iyo ololayaal ka qabsato dadka reer somalilandna waa laga qarinayaa waxaan halkan uga sheegaynaa markaa waa xuduudda somaliland gooja cadda maaha waxa weeye hal sanaag bari waxaa ka socda xukuumaddu dadka ka siiso jawaab ku filan sababta looga difaaci waayay duulaanka ay puntland iyo soomaaliya kusoo qaadaan deegaanada waayahay xamse khayre xogayaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee xisbiga mucaaradka ee wadani aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga aadna siisay aad baa umahadsantihiin walaal aad iyo aad baa umahadsantihiin kaas wuxuu ahaa xamse khayre xogayaha ganacsiga ee warshadaha iyo dalxiiska ee xisbiga mucaaradka ee wadani fadlan beritole ayaanu ku qaadan dhigi doonaa xogahan iyo xogo kaleba spaceka aanu ku leenahay twitterka 8 fiidnimo markay tahay dalka ingiriiska 10 fiidnimo markay tahay dalka somaliland waayahay inta kulankan kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana allah